عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. wuxuu yidhi abuu cabdiraxmaan cabdullaahi binu mascuud allah ka raali noqdee, waxaa noo sheekeeyey rasuulkii allah sala allahu calayhi wasallam isagoo ah runle la rumeeyo, oo wuxuu yidhi: qofka waxaa lagu ururiyaa caloosha hooyadii isagoo candhuuf yar ah 40 maalmood. intaa in la egna wuxuu ahaanayaa xinjir yar oo dhiig ah. intaa in la egna wuxuu noqonayaa waslad yar oo hilib ah. markaasaa loo soo dirayaa malag, wuxuu ku afuufayaa nafta, waxaana la farayaa 4 eray oo kala ah: inuu qoro arsaaqadiisa, cimrigiisa, shaqadiisa, iyo in uu yahay shaqi ama saciid. waxaan ku dhaartay allah, aan ilaah xaq lagu caabudo jirin asaga maahee, qofku wuxuu falayaa camalka reejannaadka ilaa uu u jirsado in xusul ah. markaas hadduu yahay qof loo qoray naarta, wuxuu falayaa camalka reenaareedka, markaasuu gelayaa naarta. ama qofku wuxuu falayaa camalka reenaareedka ilaa uu u jirsado in suxul ah, marka hadduu ahaa qof loo qoray jannada, wuxuu falayaa camalka reejannaadka, markaasuu gelayaa jannada. waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim.